warahmatullahi wabarakatuh asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena toddobaadlaha aynu ku wadaagsanay waxyaabaha aan u arko inay faa'iido inoo leeyihiin maanta waxaan joognaa gobolkii cagaarna gobolkii Gabiley waxa marti inoo ah wariyihii weynaa ee Maxamed Haldoor activiski caanka ahaa halgamaagi soo dhawow Maxamed Haldoor aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad barnaamijkan nagala soo qayb qaadato oo aad asxaabteeda iyo asxaabtaadaba halkan kula wadaagno barnaamij jaamac aad baad u mahadsan tahay sharaf bay ii tahay marka ugu horeysa inaan barnaamijkaaga marti kugu noqdo waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijka marti kugu noqdo sidoo kale waxaan ku faraxsanahay in barnaamijkan ku duubeyno Gabiley magaalada Gabiley halka laga galo oo dadii baynu taaganahay marka waan ku dhowahay Gabiley maanta booqasho ballaaran baan ku nimi booqasho dalxiis iyo booqasho kale khaasaba Maxamed Haldoor maanta waxaanu ka hadlaynaa barnaamijkan uu ku saabsan yahay aan asxaabta la wadaagayna qofka bini'aadanka ah adkaysigiisa intuu nolosha joogo iyo sida ay tahay inuu nolosha wax kasto ka hor yimaada ama caqabad kasto ka hor timaada maadaama noloshu ay iska tahay imtixaan oo caqabado badan tahay aynu u noqdo qof adkaysigeeda leh oo wax walba oo nolosha ka hor yimaada si positive u bedela oo caqabad kasta u bedela opportunity u bedela adiguna waxa tahay qofka ku haboon laga wareysan lahaa dadku taariikhdaada way yaqaaniin iyo sidii halgankaagii aad ku soo martay noloshaada iyo dadaalkii badnaa iyo caqabadihii badnaa aad ka soo gudubtay maanta waxaan doonaynaa inaan ka wareysano noloshaadii ka wareysan mayno laakiin waxaan ka wareysanaynaa maxay aad kula talin lahayd dadka dhalinyarada ah caqabadu markay ka hor timaado qofka caqabada ka hor timaado ama mid physical ha ahaato oo caafimaad ama mid dhaqaale ha ahaato caqabad kasto nolosha ka hor timaada maxaad kula talin lahayd horta Ramadan Mubaarak waan ilaaway jaamaco runtiina waxayna dhahan nolosha maartay way qayb badan tahay marka inagu eegayna wax kasto qofka bini'aadanka u maray horta waa wax qoran qofkii inuu isku mashquuliyo wax qoran oo Ilaahay sii dhigay qoraalkeeda sii dhigay markay caqabad ku noqoto wax inaad kufto ceeb ma inaad ka kici weydo waa ceeba marka noloshiina wanaga eegnay Ilaahay walqad khalaqna lisaana fi kabad wax adag baa laga sameeyay marka noloshii waxyaabo badan imka tusaale kale aniga Maxamed ahaan markii aan socon jiray jaamaco adood garanaysaa imka dad badan baa igu arkay anoo wheelchair ka saaran marna ma ismaan oran laxadkaaga duwaayis haddana deewaanigii waan waayay marka wax dad baan arkaa badan oo asxaabo talay weydiiyay ugu dhaha Maxamedow markii waxyaabahaas aan haysta maxaan sameeynaa si yar oo kooban baan u dhahaa war lugahaygi waan ka samray waxna wax weyn ma ahayd wad dhameyn kartaa isku day iyo ku dhaciyo ku dhiirasho bad la imanaysa dad ganacsiga inaad ku khasaarto buu u fiican yahay marka hore oo dadka in kastoo aqoon badan oo ganacsi lahayn hadana inaad khasaarto marka hore waayo marka dambe wax ku baranaysa tan kale waa la mid wuxuu ba kala duwan magacii loo bixinayay ganacsiga iyo wixii ba laakiin noloshu qaybahan qofka uu marayo waa la mid Maxamed sidaad ka dhawaajisay aan anuguna kugu aqaanay barigii aad yaray laxadkaagu ku dhameystirnaa waa socon jirtay aad iyo aad aan laxadkiisu dhameystirnay aad iyo si kaliisa mar qura arrintan kugu dhacday oo qadarkan la kugu dhaco aad hal habeen sida sheekada aad kici kar weeday maxaad dareentay markii ayaamihii jaamaco ano aad u daayar marka 13 jil baan ayuun baan laxadkayga waay runtii adduunka ay cusba riyooyin badan baan lahaa waxyaabo badan baan ku hamiyi jiray oo ugu horeyso in horta ugu horeyn noqdo mid naftiisa anfaca qof markuu naftiisa anfaco cid kale wax tari kara ama anfici kara marka waalidkaygana hooyaan noolayd hooyaan isdhaha badana Soomaalida iyo dadka Islaamka waxay ka fikiraan in hooyadooda inay wax taraan halka ugu fiican ay geenayaan xajka geey markii aan xanuustay aan arkay inaan noloshii wax kasto aan ku hamiyay ay si uun been u soo noqonayaan aad baan u niyad jabay runtii markaan runta ka hadlo waxyaabo badan baan isweydiin jiray xitaa mararka qaar waxaan oran jiray Ilaahay oo maxay sidan u dhacday maxay sidan igu dhacday anigu sidan uma qalmi marka iyaga fayga ma jiray laakiin Ilaahay iimaanku way hagaajiyay ما نقد ميدس ديبا runtii taasna waxa ka qayb qaatay dadkayga walaalahayo ila dhashay runtii aan imuujin marka qaarna waxa dhici jirtay maadaama kale kan hooyo waco aan uu ka war marka taa inankayga ba kula hadlay oo qof iska weyn si ay ugu sheegto inankaan ahay waxa inankii culyaanka
marka wixii oo dhan bay isbedelay marka taadayna Muuse kula hadlaya keebo oranaya marka waxa igu yar adkaan jirtay markii hore marka la igu dhaho inanka curyaanka ama waa inankii naafada laakiin iminka waxba kama soo qaado marka qaar xitaa qofka hadii galan waaya baan walba wiilkii naafada maxamed ow sidaad ka warantay waxaad soo martay xaalado adag ahaantii oo de qof soo mari karo markii intii hore dhan rajaad lahayd waxa islayd ama wala dhakhtar baa ku daweynaya ama si uu madoo soo kaban markii xaqiiqadii waaqicii ay ku cadaatay inay tani tahay xaaladda rasmiga imika wixii ka dambeeyay kulli inta la og yahay ay taas ku cadaatay maxaa kugu dhiirigeliyay in aad heerkan ama guushan gaadho aad dadkii soo dhaxlashay aad wax barato aad shaqo caadi ah hesho aad adigu u noqoto dhiirigelin dad badan oo kumanaan kuna ay kugu daydaan aan anigu ka mid ahay aad dhiirigelin u noqoto maxaa sideed ugu soo dhiiratay noloshii macnaha stress ka sideed uga soo baxday jaamac horta markii hore waxa isaga ahaa abuurka qofka maartay nin iska sheekeeyo hadal badan oo dadka la qabsada oo waxaan inta badan ku dadaalay in qofku markuu ii yimaado dad lacagna ma dad badan bay soo booqdo soo dhaweyn fiican inta ma sameey laakiin waxaan ku dadaalaa qofkaas inaan igu caajisay oo aanu sheekeeyo ka qosliyo deetana maalin ayaamii 2008 baan xanustay 2009 markii guriga la keenay waan iska fadhiyo jiray inaan baa eraygu yiri eraygu runtii waxba ii taray laakiin markaa uu igu way damaqday wuxuu igu yiri niyo markaa walaalahay habla u badnaa ila joogay eraygu igu niyo haday ka tagaan balaan habla wala guulsada maxaa ku nafay ayaa ku haynaya xageed joogaysa tan su'aashii baan habeenkii oo dhan jaamac habeenkii oo dhan baan isweydiinay markaas aan bilaabay inaan noloshayda meel ka soo saaro qofkuna noloshiisa isaga qurxiya isaga qaabaya qaabkaad ka dhigato ayuun bay ku noqonaysaa haddaad doorato jaamac in guriga inta iska joogto cunto cabto wada awooda reerkiinu waa ku soo karinaya cuntada laakiin aan taamaan dooran waxaan doortay in ugu horeyn bal in aan dadka soo dhaxgalo runtii markaan dadka soo dhaxgalana leeyma fogay aad baa leeso dhaweeyay dad badan oo jecel maantada aan kula hadlayo dad baa jira jaamac oo aanan is arkin wadada ilaahay jecel maalin uu doonay inay la kulmaan taasna wax kale ma aha mararka qaar laba tusaale aan ku siinaya inka jacaylku dad ay qabaan ee badan mad baa dhici jirtay xafladaha qaar inaan tago inaan iska soo bixi jiray inaan cidna garanay inaan cidna islaam mararka qaar haddaan la ballamo faraxo inaga duwaysa muuqaal haddaan la ballamo jaamac aan la ballamo waxa dhacaysa inaan fursad bay isku weynaayo oo dad badan naga jiiraan marka qofku isaga walaal doorta inuu noloshiisa qaabayo qurxiyo ana taas ay igu dhiirigelisay markii qaar waanigi idaacadii duubi jiray waxyaabo badan baan qaban jiray dadna markii dambe idaacadii aan duubnay ayaa inan baa igu tiri waxaan duubtid dadka ma soo bandhigtid waa wax fiican yumkin inta Mareykan bay joogtaa وانا سلامية فيسبوك عن سوري كانت هاي لا يربح كلها فيسبوك دور قف لكن هذه دي كل مشكلة وانا سلامية كنتي تقولي شيء قديم كاوي هاي تنا اد بي إلى دعين كنتي مركي دبنا دي كمان شوك سن بالله كانوا قطعي كنتي أنا ضد بدن باي ده تصال النقطة لكن runaatii waa wax fudayasho mudan maxamed halgan kiisaas aniga dhiirigelin khaas u yahay sababtoo ah qof adag ayaa ka soo bixi kara xaaladda noocaas oo kala oo isagu intuu noloshiisii horumariyo caqabadii ka soo baxo noloshiisii horumariyo dad kale dhiirigelin u noqdo oo laga yaabo dad badan oo xalxaadkoodu u dhan yahay inuu isagu ka firfircoon yahay ka farxad badan yahay oo nolosha sidoo u qaabilay uu positive u yahay uu kaga badan yahay maxamed waxyaabahan ku arkay inta aan aqaanay waxa kamid ah qof dadka hadaad waxa ugu yaree loo qabto ama xataa hadaad soo salaanto ka dhigaya qof wax weyn uu qabtay macna gratefulness qofku muujiya oo qofku inuu si weyn dadka ugu mahad celiyo si weyn dadka si kaliya laaba ugu mahad celiyo very grateful marka barnaamijkeena maanta waxaan ugu soo qaatay maxamed haldoor in qof kasta oo isleh nolosha caqabad baa ku haysata in tan iyo mid ka weynba laga bixi karo ayna ku xiran tahay sida maxamed inoo sheegay hab fikirkaaga iyo mindsetkaaga haddii aad adigu isdhigato istiraahid waxba ma qabsan kartidna aanad qabsan karin oo halka aad weligaa ku jirayso haddaad adigu ku soo dhiiratid nolosha oo aad tiraahid waan qabsan karaa wax walba horumar waan samayn karaa dad kale nafahoodana wax waan ka bedeli karaana uu maxamed tusaale inoogu yahay oo uu aan maanta aragno tusaalihii oo soconaya maxamed waxaad tahay activist baad wax u ololeysaa
dadka laxaadkooda aanu dhamaystirnayn iyo sidii access iyo opportunity uga heli lahayn hadday building iska tahay dhismayaasha oo aanu samaysnayn hadday waxyaabaha waxbarashada tahay oo aad u halgantaa maxaad odhan lahayd ama qof ay ku cusub tahay laxaadkiisii oo laxaadkiisii maanta beelay haddayna daawanaya jiraan ama dad hore u beelayba ay jiraan ama dad si uun u dareemaya inay caqabad u haysato maxaad ku dhiirigelin lahayd imika waxaa dhacday qofka jaamaco ku cusub runtii aad baan uga warwaraa weliba gadaalkan laxaad beela qofku markuu ku dhasho noloshuu la kacaamaya wuxuu baranayaa isaga oo lugala laakiin markuu gadaal sidii igu dhacday oo kale runtii weelna uma samaysna dadkaas deegaan ama environment bay ka hor imanaya adag inay ku noolaadaan runtii oo ku adag marka qofka ay saas ku dhacdo ugu horeyn horta waxaa u rajaynaynaa in marka ugu horeysa saddex caqabadood buu badanaa ka hor yimaada waxaa ka mid ah deegaankii oo waxaa ka mid ah buildingkii capacity dhismayaashii aan u qaabaysnayn qayb isaga loogu talagalay ta labaadna waxa weeye dadkii ayaa ku imanaysa inay dee ama markay ugu yar tahay in magac xun ugu yeedhaan taasna intuu niyad jabo guriga ku noqdo ta saddexaad ayaa inuu isagu isku hayo caqabada saddexaad hadday kusoo gudbo labada kale waa simba laakiin intuu isagu isku hayo anigu mararka qaar waxaa dhici jirtay jaamaco haddaan in yar kuugu daro markaan timaha soo xiiranayo ra'iislaha tegayo gaariga markaan saa uga soo dego dadkoo dhan baa alla hooyana ka maxaa helay ma dhabarku ka jabay miyuu suuxay su'aalo badan deetana saan ugu dhaweeyo hadalkooda indhahan isku qaban jiray ha deetana ilaa way iga soo dabagalaan kursigii ra'iiska ha ilaahay ogaadaan sababta dad wax kalena kama aha dadkeena waa dad iska runtii barakaysan deetana inaan dadka hadalladoodana ku mashquulin runtii marka qaar waxa dhici jirtay bandhigyada markaan tegayo iyo bariyo ugu horeysan bandhigay meelaha madalaha tegayo in la soo wada eegi jiray sidii inuu qof soo galay meesha laakiin imika waa tay ninkii maxamed baalkiisii wata fiirkiisii cidna iguma mashquulin oran karaa caqabadihii aad ku haystay ayaad fursad u bedeshay ha waayo de caqabadii waa fursad caqabadii waad ka gudbi kartaa laakiin waa aniga ku yiri aday kugu xidhan haddaad doorato waa ninkii buurta xaggeeda halka fikteeda nolol haboon adduun bay kugu xidhan adkaysigeedana haddaad la timaado Soomaalidu wax ku baahan jaamaco bilaayo waliba u barashale marka runtii saas un baynu kula talinayna dadka waanan rajaynayaa qof kasta waayo imika waxaad weydiisay qofkan gadaal ama horeba uu laxaad beelay waxaa dhacaysa qofku jaamaco maanta markuu meel organization ku biirayo isagaa doorta isagay ka go'daa laakiin qofna ma doorto inuu laxaad beelo oo wax ilaahay u dooro runtii inaad wixii ilaahay kuu dooro ogolaato imika anigu waan samray samirkii baa laba nooc samir taag waa taa maxaan qaban karaa laxaadkayga waan waayay samirkii baa laba noqonaya samir taag waa iyo mid samir jamiila marka inaad samirto ilaahay ku samirto wuxuu kuu qadaray waxa dhici karta inuu waxyaabo badan kuu furo dadka ku jeclaysan waxa dhici jirtay jaamaco mararka qaar baan guriga kaliya joogi jiray aanay nolol wada halka lara qolkaygii afarta daa qolkaygii waa subaxdu igu soo baxdaa way igu dhacdaa imikana alxamdulillah marba meel baan tagaa asxaabta ay kacaysa intaan guriga joogaa yar wax kalena ma ahayna waxa weeye markaad noqoto qof muuqda oo bulshada meel kaga jira qof la qiimeeyaad noqonaysaa wakaas walaa runtii aad buu nuga mahad celinaa maxamed haldoor taariikhda iyo dhiirigelinta uu nala wadaagay barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay in caqabadaha nolosha si kasto wax kasto ay yihiin aanad u jabin oo aanad u fadhiin noloshu way gaaban tahay in aad cabatido meel fadhiisatid oo aad tiraahid waxaas ay igu dhacay waxa ka fiican inaad ka baxdid oo isku daydo inaad ka baxdid oo caqabad kasta oo kugu soo wajahda aad fursad u bedeshid wixii aan ku dilinba aad ka nooshahayba aad ka kacdid oo aad hore uga socotid maxamed aad buu mahadsan yahay farax aad buu mahadsan tahay يونس يسوون هالك شو أنا أدو مهتمين هاي أنت أصلاً كسوق كوبينا مانتا قبيلين هو سلامة هاي رمضان مبارك